marka waxa socdo doorashooyinka socdo qof iyo codka waxa kuma jira leedahay walaalow doorasho inta lagu qabanaa doorasho heshiis laga anigu fiiri ana cad fitaha maanta hamis oo hogaamineed ugu jira in li hogaamiyo waa rabaa in dalkan dimuqraadi ka dhacdo la isdoorto waa rabaa xildhibaanada la dhaari wax shaqeynaa maaha waxaas inta ka shaqeynayaan anaga xuquuq malin annaga waa rabnay inaan ka qayb laakiin waxaan ugu qayb qaadan wayne idinkoo ah annagoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo maya dhalinyaro Soomaaliyeed annaga mucaarad muxaafid maaha dalo fiiri waxaa la rabaa moogtahay wax adiga ku cuntumay wax natiijada ka soo baxaysa ogtaa la rabaa in dadka aqli malaha moogtahay waxaan rabaa natiijadu waxa waa mid qaana meesha ku soo bishoonayso in asal ahaan waxaan aysan shaqeyn doonin wax natiijo malaha miya hadda wax socdo natiijada inta ka imaanay waxa isku walaaqanaa war fiiri xogihiisa ka baxay xisbiga markuu adkeysan waa dulmiga iyo wax socdo sidee marka ay dadka ay ku aqligooda ninka isla shaqeynayeen muddo dheer wadawaa waxa isla shaqeynayeen muddo dheer intaana wuxuu lahaa bal madaxweynaha bal waxa laga yaabaa inuu habeen ilaahay maskaxdiisa ku soo dejiyo oo ku soo dejiyo in maaragtay waxaan ay dib in loo soxo wixii waa ka soo naasacdaan wayn dharaar cad warqad official oo soo saaray marka qof iyo codka hadda soconayo maxay ku dambeynaa waxay ku dambeynayaan waa hal bacad lagu maalay waxaan maxaa la rabaa lacag lagu dhaqi rabaa waxaan lacag lagu dhaqi rabaa dhulkii la boobay iyo maartay adduunka lacag lagu soo qofaayay waxaan la marsanaa waxa la rabaa madaxweynaha inuu dhaho inuu aan doorashaan qabtay waxa iga baxday inta soo milyan ama bilyan iga baxday maxaan sameeyaa waxa marka waxa waa lacag lagu dhaqayaa ma ogi xitaa lacagta oo la sheegayo walcaantaas iga baxo oo leeyahayna ma jirto laakiin waxa waa lacag dhulkii la boobay ummadii oo maartay kii sharciga loo haystay iyo kii aan sharciga loo haysanin labadaba oo la boobay oo kaash laga dhigtay waxa la rabaa in la dhaqo see lagu dhaqaa marka haddii aanan safar lagu dhaqa aan la keenin qorsho marka waxaa la keenay in doorashadan qof iyo codka ah miiska soo saaro oon shaqeyn doonin oo aakhirkeedana teendhada iyo madaxweyne kale inuu doorasho madaxweynaha soo socdo suurtagal inuu qabto laakiin tan hadda taagan waxa waaye doorasho ma waa doorasho lacag dhaqis ah waay oo lacagtii bulshada laga dhacay ee bulshadii baahneed ee lahayd dhulkooda iyo waxooda iyo musuqmaasuq ahayd aan rabaa in lagu dhaqo ma aha doorasho sax ah maaha saaxiibadii oo isku howlay oo waxaan rabaan inay maartay ka soo real u malaynayaan maalin waxay xasuusin doontaan war Cabdi Fataax hadalkiisu sax u ahaa waxa ma shaqeyn doonaan xaqiiqatan ma shaqeyn doonaan waxaan heshiis lagu ahayn waxa dhalanaya 15 May bismillaahir rahmaanir rahiim kulantu aan saaxiibayaal halkan waa warbaahintii meel ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno mid ka mid ah dhalinyarada ku nool gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka si weyn ula socda xaaladda siyaasadeed ee dalka dagaalkii lagu qabsaday amaba duulaankii dabcan lagu la wareegay koonfur galbeed Soomaaliya loogana saaray nidaamkii halkaas ka talinayay Cabdicasiis Laftagareen ee la sheegay in shacabkii iyo waliba siyaasiyiintii halkaas ka soo jeeday uu jujuubay sidoo kale waxaan intaan wareysigan ku guda jirno aan dul istaagi doonaa doorashooyinka qof iyo codka ah ee la warinayo in dalka ay ka dhaceyso nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku adkeysanayaan iyadoo dhanka mucaaradkuna ay si weyn u diidan yihiin doorashooyinkaas qof iyo codka Cabdi Fataax ayaa ila jooga Cabdi Fataax ku soo dhaw warbaahintii marka koowaad bal xaalka guud ee siyaasadda dalka iyo doorashooyinka loo ololeynayo qof iyo codka hadda gobolada marka la eego si weyn uga socoto amaba loogu qorsheynayo koonfur galbeed inay uga dhacdo bal iga waran maxaa kala socotaa xaaladda siyaasadeed dalkana ka dhalinyaro ahaan bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaah Adi iyo bahda Himano TV waan salaamayaa salaan kadib saala wada socotaanba isbuucan gudihiisii ilaa iyo isbuuci horeba waxaa jiray maaragtay abaabul xoogan ee ugu dambeynna loogu wareegay caasimadii ku meel gaarka ah ee Baydhabo waxaa la wada soconaa gulufkii lagu qaaday Laftagareen inuu ahaa mid dawladda xaggeeda si weyn loogu qorsheeyay laakiin Laftagareenna uusan asi isku qorsheysan sida dhamaalaba saan wax anaga waxaan kamid ahay dadkii taageersanaa Laftagareen kamid ahayn waxaan ugu dhacayna wax lama filaan ay noqdeen annaga waxaan isleen ka mucaarad ahaan
waa ognahay inay maaragtay iska adkaan lahayd laakiin waxaan lahayn at least lafta gareen maalmo waxbuu sii jiidi karaa oo dagaal uu kusii jiri karaa maalmo wax isxajina way sidii bulshada iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta jooga ay arkayeen ciidamo waxaan u jeednay oo fara badnaa oo marka qaar hataa hal ku dhigadu ahaa new RR kaas oo ahaa muddo badan ay koonfur galbeed kusoo caamaashay dagaalo badan ay kusoo gashay in oo lafta gareen markaan boorka uu dib uga jafaayo oo new RR uu sameeyay uu awood leeyahay aan lagu dhici karin need taas macnaha mucaaradkii ay ku hayeen laakiin waxa dhacday wax lama filaan dhacay oo marka qaar hataa waxa isdhahaabnay wax oo lafta gareen hor taagnaa ma AI ahaayeen oo xariga usoo tababar ku soo xiray ma AI ahaayeen ciidan marka aysan ahayn ugu dambeynna waa tii magaaladii ayadoo dagaal weyn uusan ka dhicin in si fudud looga farmaroojiyay Cabdicasiis lafta gareen taas marka waxay fariin wax u diraysaa cid kasto oo ka aragti duwan madaxweynaha hadda xukunka hayo taasoo ah madaxweynaha wuxuu ku sameeyay lafta gareen maxaa lagu tilmaami karaa marka maduulaan oo yacni lagula wareegayo koonfur galbeed miya mise nidaamkii halkaas joogay oo dowladda ka hor yimid in lagu afjaray maxaa lagu tilmaami karaa wallaahi kan duulaan qaawan u ahaa ma ahayn wax kale oo lagu tilmaami karo oo maanta aan oo qof oo kulay dadka waa tilmaami karaan laakiin aniga cadiftahaan ah aragtideedu wuxuu ahaa mid duulaan qaawan nidaamkii ka hor yimid dowladda in lasoo gabagabeeyo lasoo afjaro dadka laga hor qaado duulaan qaawan miya nidaamka wuxuu ku joogay heshiis ku joogay wuxuu soo jiray lafta gareen hadda kama dhamaan xukunka lafta gareen wuxuu ka dhamaaday 2014 waa tii Oman id loogu daray oo asiga iyo Ali Guudlaawi iyo qoorqoor iyo Said Ahmed Islam Ahmed Doobe tiimka dhan waxa loogu daray muddo kordhina loogu sameeyay waa tii uu ka baxay Ahmedo markuu mandatkii uu ka dhamaaday san doorasho qabsaday saaxiibadan kale waxay kula sii joogeen heshiis siyaasadeed ay kula sii joogeen naftirkiisa markuu arkay lafta gareen in lagu haayo duulaan oo kursigiisa loogu soo dadka loo soo wado wuxuu go'aan qaatay in maartay uu kursigiisa difaacdo waxa keenay marka waxa waay rabitaankii madaxweyne Xasan Sheekh iyo rabitaankii lafta gareen oo iska hor imaaday marka madaxweynuhu muxuu muddo kordhinta ugu sameeyay waqtigaas waa macnaha uu sii dheereynaa lafta gareenna waqti maalintaas wuxuu haystay Jaanis uu haystay muxuu lafta gareenta oo tabana muxuu daraaway muxuu go'aan u qaatay oo madaxweynuhu ugu tagay go'aan wuxuu u qaadan waayna ninkan waxa waaye inuu meesha dhaafo iyo inuu maartay xoog ku joogo inuu aw cadaatay wuu isku day awood inuu ku joogo awood ka badan ay imaade laakiin su'aasha dad badan isweydiinaya waxay tahay Cabdicasiis halkaas markuu uu ka hadlayo shirka jiraad uu qabtay dowladda xiriirka u jaray waxa uu sheegay hal qof ilaa ay ka nool yahay iyaga inay dagaalamayaan oo aysan qaadanaynin in halkaas dowladda ay qabsato si sharci darro lagu qabsado waa sida isaga uu sheegay ciidan uu soo bandhigay hubo soo bandhigay yani abaabula socday qaar kamid ah xildhibaanada halkaas tagay jiray gudoomiye hore baarlamaanka kamid ahaa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan dadka su'aasha isweydiinayaan waxay tahay Cabdicasiiskii intaas abaabul waday maxaa keenay in si fudud uu isku casilo si fududna uu halkaas uga baxo maxaa lagu qiimeyn karaa tahay horta sida dhamaad dagaal markii la galay inta aan ka aqaaniyo inkastoo aan ahayn oo maartay arrimaha abnigi waxaas aan ku taqasanahay laakiin garaadkayga wuxuu siinayaa dagaal markii la galay sida wuxuu u baahan istaraatiijiyad u baahan Cabdicasiis lafta gareen waxaa ka baxay deegaanadii uu difaac ka gal lahaa buuraha kabo iyo baydhabo wax saas isuma jiraan masaafo saas isuma jiraan hal degmo markii laga reebo baydhabo hal degmo oo gacanta ku haya ma jirin
cabdicasiis lafta garan waxaa laga rabay in uu dagaalka ka hor inuu isbedel ku sameeyo buur hakabo waa laga rabay waxaa laga rabay deegaanada kale inuu isbedelo ku sameeyo waxaa rabay ciidanka inuu fogeeyo ciidamada uu tababarayo intaan oo hadda maalmo ugu dhow tusaay waxaa laga rabay mar hore in furimaha hore la geeyo si ay maalmo u qaato taa ay u adkaato in bay dhow la soo gaaro haddii buur dagaalka uu ka dhici lahaa buur hadduu dagaal ka dhici lahaa waa adkaan lahaa baydhabo in si fudud lagu gaaro haddii diinsoor ilaa iyo ufrow dhulkaas haddii ciidamadiis ay joogi lahaayeen way adkaan lahayd in baydhabo si sahal lagu soo gaaro lafta garan waxaa oo sida kayska u baxay oo dadkan ilyaabin waxaa waaye waa nin guriga uu ku jiray hadda meesha aan joogno haddaan difaac ka galno ka hor haddaan meesha guriga hadda aan joogno haddaan difaac ka galno wax aan la joogno ma laha caasimadii kumeel gaarkeeda oo baydhabaheedu difaac ka gal ninka waxaa rabay mar hore inuu qorsheeyo cilada kale oo meesha jirta waxaa waaye mar kasto siyaasiyiintan inta badan lama soconin iyo dadkan kama warqabin nolosha saxda oo ka jirta koonfur galbeed waxaad moodaa dadkii meesha joogay ee shacabka meesha ku noolaa in ahayeen shacab maaragtay aada iyo aada maaragtay xabsi ugu jira waraa waxaa arkaysaa maamo gacmaha kor u taagayso oo dhahayso ilaahigii naga qabta macnaha shacabka mar kasto ood cadaadiso sida dhamaalaba shacabka waxaa garab hogaanka waxaa ku shaqeeyaa maaragtay shacabka marka cadaadis shacab uu ku baxay leedahay istiraatiiji xumo labadaba ku baxay dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamed marka la yimaado shacabka dhankiisa maxaa talaabo u jira meeshaan casharo badan ku jiro meeshaan waxaa ku jira casharo fara badan shacabkii aan aragnay ee baydhabo oo sida aragta maaragtay ugu falceliyey kuna farxay bixitaankii lafta gareen madaxweyne xasan sheekh wuxuu sugi doonaa maalmo qaraar shacabka muqdisho meel kale ma joogo mogta meel kale hadda oo hadda maanta lagu gurbaato meel kale oo xukumo malaha meelada maanta laba meel bis oo hadda gurbaanka loogu tumi doonaa mid muqdisho awal ahayd midna waa mid hadda oo asiga gacantiisa uu ku qabsaday oo baydhabo ah labadaas bis gurbaanka loogu tumi doonaa marka waxaa sugaysa madaxweynaha maalmo qaraar oo ah in markii la gaaro 15 May markii la gaaro shacabkan waxay heli doonaan maaragtay siyaasiyiin horkacda oo maaragtay xasan ka aragti duwan mar kastana waxaa waaye shacabku waxay la jiri doonaan cidda maaragtay dulmiga ka hormaanayso maalmahaas waxaa la arki doonaa hadda maalmaha dadka la soo bixinayo leeyahay soo baxa waa shaqaalihii u shaqeynaya dowladda hoose iyo tii federaalk waxa u shaqeynaya waa way soo dhamaan doonaan waxaa ka awood badan shacabka aamusan ee dulmiga ka aamusan macnaha muxuu shacabka ugu tirsanaa madaxweynaha muxuu shacabka ku sameeyay madaxweynaha muxuu ku sameeyay dadkii oo aad aragtay oo waayeel oo dhabarka laga garaacayo si dameerka camal la fuulaayo hooyeel maaragtay la jirdilaayo guryo habeen madow la iska barankicinayo cagafta la isgelinayo maaragtay musuq maasuq aragtay oo la isku shaqaaleysiinayo maaragtay yaa iga aragti duwan yaasan iga aragti duwaneyn waxaasoo dhan oo gabood fallaa dhacay waxay ku dhacayeen shacab Soomaaliyeed oo qaasanta degan ee gobolka Banaadir degan ku dhacayeen waana malaayiin waa aaminsan waa cabursan yihiin dadka macnaha waxaa waaye waxay maanta u aaminsan waxaa waaye waxay jecleen dowladnimada laakiin doorashooyin qof iyo cod dalka ah Soomaaliya oo shacabka loogu daneynayo sida dowladda ay leedahay waa saxan tahay doorasho sida nimanka meel qabanay doorasho waxay u baahan tahay nidaam loo marayo shacabka doorashadas ma rabaan waa u baahan anaga shacabku waa koodnahay shacabka waa nahay waxaan rabnaa in la hogaamiyo inaan wax hogaamino waa rabnaa laakiin sifadee loo maraa waxaa loo maraa sifa sharci sifa oo wada heshiis ah loo maraa doorasho kasto oo heshiis lagu ahayna waxaa ka dhalata maaragtay natiijo oo maaragtay aan qaldana ka dhalanayso madaxweynaha asaa hore wuxuu dhihi jiray doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaa ka dhalan kara falcelin oo maaragtay in lagu saxo qalad lagu saxo oo macnaheedu uu kala jeeday in maaragtay si awood military ahaan in la soo adeegsan doono ugu dambeyn waa tii uu ka sameeyay oo mirnaayo oo la galay oo gacmaha la qabanayo oo la war nidaamkan ninkan hadduu qaldamay ka daba qaldamine waxaa qabanaya Sheekh Shariif ka mid ahaa siyaasiyiinta waaweyn oo habeenkii ninka markii maaidin lagu soo weeray asaa dagaal number 1 habe asaa number 1 aha
in maanta uu ka shaqeeyo wixii shal la diidanaa oo la lahaa warniyo heshiis waxaan aan ku doono in maaragtay maanta marka waxaa caddaanayso in shalay si asigu sameey lagu samayn doono shalay wixii lagu sameeyey wixii asigu oo dadka ay laga asigu u diidanaa maanta cid ka yeelaysa ma laha yaa ku sameynaya mucaarad israacsan maahan mucaaradku waqtigaas waa israacsanayeen kuwa maanta jooga kuwa israacsan maahan madaxweynuhu isaga afkiisa ka sheegay mucaaradku wax aragti siyaasadeed inaysan lahayn maxaa diidaya madaxweynuhu aragtidiisa in hore ay u socoto haddii mucaaradku aragti lahayn mucaaradka waa israacsan yihiin ma aaminsantahay horta mucaaradka aragti inaysan lahayn mucaaradka aragti way leeyihiin aragti way ka midaysan yihiin hadalka madaxweynaha maxaa ugu jawaabaysaa mucaaradku inaysan aragti lahayn tashwiish waxaa waaye uu ku furaayo waay mucaaradka oo dhexdooda uu ka abuurayo waay waa narrative asiga uu abuurnaa waay laakiin mucaaradka iyo asiga laba shay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin asiga ma rabo dowlad asiga uusan hogaaminayn inay ka dambayso ma rabo mucaaradkana waxay rabaan inay ay si nabad ah oo xasilooni ah in xukunka lagu kala wareego faraq u dhexay kaas waa marka ayaga waxay xeerinayaan in nidaamkan uusan ku burburin si fudud uusan ku burburin bal xasan wuxuu rabaa madaxweynaha hadda xukunka hayo wuxuu rabaa in nolosha ka dambaysa oo asiga uusan xukumayn inaysan nolol ka dambayn tusaale ahaan hadda wuxuu ka shaqeynayaa doorasho uu ku magacaabay qof iyo codda ma aqliga saliimka ah ee qof bini aadan noocee aqbalaayo doorasho qofkii maaragtay xukunka haayay qof dad ay saaxiibiin u dhiibtay waraa ninka uu u dhiibtay guddiga doorashooyinka waa la yaqaanaa waa ninkii u sacbinaya maalintii uu xukunka ku guulaystay iyo kaambeynkiisa dadkii ugu cadcada u ahaa sidee marka lagu aamini karaa guddi dhan u janjeero waa qodob kale waxaa waaye waxaad aragtaa dhammaan wuxuu ka wadaa maamul goboleedyadii iyo doorasho asiga oo jaabkiisa ah waxaa loo baahan doorashada in siyaasiyiinta asiga ka aragti in la keeno oo ay soo fariistaan miiskooda halka ay fariistaan la jaangooyo war maxaa ka qaldami karo maxaa qaldan yaa wax laga bedeli karaa in wax laga bedelo wax heshiis lagu yaal rabaa sida dhamaanaba dalkana waxaa waay mataqaanaa dalkan dal oo jilcan waay dalka wuxuu u baahan yahay hogaamiyaasha waa inay tanaasulka ay badiyaan inaysan xukunka isku dhejin xukun la isku dhejiyo waa la ogaa wixii laga dheefay siyaad barre allah u naxariisto wuxuu haystay 21 sano xukunka hay sida maanta ma waa dawlad awood badan u ahaa dawlad soo adkeed oo xitaa maaragtay ay ka baqaan dawladaha dariska ana aad uga baqaan waxaa si fudud u dumiyey waxay ahaayeen in xukunkii doorashadii uu isku adkeey markastoo rabitaanka iyo siyaasiyiinta ka arag duwan ay aad caburisida oo diididna waxaa fudud in si sahlan aad dhulka u timaadid maanta dawladda Soomaaliya waxay inta badan ay gacanta ku haysaa wax xamar inta kale meel ay argagixisada haystaan iyo meel maaragtay maamul goboleedyada asiga ka wada ay haystaan ay u badan yihiin marka waxaa la rabaa in tanaasul la sameeyo siyaasiyiinta isu keeno maamul goboleedyada lagu duulaayo waxaan in la joojiyo markasta oo lagu duulo meel ama la caburiyo waxaa dhalinaysa in la sii kala fogaado madaxweynaha waxa u baaqa u diraane waxa waa madaxweynuhu garaadku kuma yaro waxaa la tuhunsan siyaasiyiinta kuwa ugu aqoonta fiican ka mid ah heerkii ugu dambeeyay oo maaragtay professornimada inaad sheeganayso waxaan leenahay madaxweynuhu wixii baydhabo ka dhacay iyo wixii dhacay waa dhaceen laakiin tan hadda joogto waxaa rabnaa madaxweynaha inuu cashar maartay dib inuu maana isboor iskaga jifo marka waxa socdo doorashooyinka socdo qof iyo codka waxa kuma jira leedahay walaalo doorasho inta lagu qabanaa doorasho heshiis laga anigu fiiri ana cad fitaha maanta hamis oo hogaamineed ugu jira in li hogaamiyo waa rabaa in dalkan dimuqraadi ka dhacdo la isdoorto rabaa xildhibaanada la dhaari wax shaqeynaa maaha waxaas inta ka shaqeynayaan anaga xuquuq malin annaga waa rabnay inaan ka qayb laakiin waxa uu qayb qaadan wayne idinkoo ah annaga dhalinyarada Soomaaliyeed oo maya dhalinyarada Soomaaliyeed annaga mucaarad muxaafad maaha dalo fiiri waxa la rabaa moogtahay wax adiga ku cuntumay wax natiijada ka soo baxaysa ogtaa la rabaa in dadka aqli malaha moogtahay waxaan rabaa natiijadu waxa waa mid qaana meesha ku soo bishoonayso in asal ahaan waxaan aysan shaqeyn doonin wax natiijo malaha miya hadda wax socdo inta ka imaanay ninka waxa isku walaaqanaa war fiiri xogihiisa ka baxay xisbiga
markuu adkeysan waa dulmiga iyo wax socdo sidee marka ay dadka ay ku aqligooda ninka isla shaqeynayeen muddada dheer waa waxa isla shaqeynayeen muddo dheer intaana wuxuu lahaa bal madaxweynaha bal waxa laga yaabaa inuu habeen ilaahay maskaxdiisa ku soo dejiyo oo ku soo dejiyo in maaragtay waxaan ay dib in loo soxo wixii waa ka soo naasacdaan wayn dharaar cad warqad official oo soo saaray marka qof iyo codka hadda soconaya maxay ku dambeynaa waxay ku dambeynayaan waa hal baad lagu maalay waxaan maxaa la rabaa lacag lagu dhaqi rabaa waxaan lacag lagu dhaqi rabaa dhulkii la boobay iyo maaragtay adduunka lacag lagu soo qofaayay waxaan la marsan rabaa waxa rabaa madaxweynaha inuu dhaho inuu aan doorashaan qabtay waxa iga baxday inta soo milyan ama bilyan iga baxday maxaan sameeyaa waxa marka waxa waa lacag lagu dhaqayaa ma ogi xitaa lacagta oo la sheegayo lacagtaas iga baxay oo leeyahayna ma jirto laakiin waxa waa lacag dhulkii la boobay ummadii oo maaragtay kii sharciga loo haystay iyo kii aan sharciga loo haysanin labadiiba oo la boobay oo kaash laga dhigtay waxaa rabaa in la dhaqo see lagu dhaqaa marka haddii aanan safil lagu dhaqa aan la keenin qorsho marka waxaa la keenay in doorashadan qof iyo codka ah miiska lasoo saaro oon shaqayn doonin oo aakhirkeedana teendhada iyo madaxweyne kale inuu doorasho madaxweynaha soo socdo suurtagal inuu qabto laakiin tan hadda taagan waxa waaye doorasho ma waa doorasho lacag dhaqis ah oo lacagtii bulshada laga dhacay ee bulshadii baahneed ee lahayd dhulkooda iyo waxooda iyo musuqmaasuq ahayd aan rabaa in lagu dhaqo ma aha doorasho sax ma aha saaxiibadii oo isku howlay oo waxaan rabaan inay maaragtay kasoo real u malaynayaan maalin waxay xasuusin doontaan war Cabdifitaax hadalkiisu sax u ahaa waxa ma shaqayn doonaan xaqiiqatan ma shaqayn doonaan waxaan heshiis lagu ahayn maxaa dhalanaya 15 May 15 May waxa dhalanaya waa inta badan naftirka waa ka dhawaajisay 15 May dhalinyaro badan ka dhawaajisay 15 May maxaa dhalanaya maxaa 15 May horta waa maalinta dhalinyarada waa maalintaas maalinta dhalinyarada anay ma dhihi lahaynba ani waxaan dhihi lahaa maalintaas waa maalintii dimuqraadiyadda la soo celin lahaa ee dhalinyarada ay qaadan lahaayeen maaragtay boorarka ay qaadan lahaayeen ay madaxweynaha ugu baaqi lahaayeen oo meel kasta istaagi lahaayeen waaye haan loo diyaar garoobo 15 May yaana maalin la dabaaldego ma ahan waa maalin dalka dimuqraadiyadda soo celin doona waa maxay u tahay shacabka Soomaaliyeed waxaan maalintaas waxay noqonaysaa laba emise doonaan in ay ka dhiidiyaan dulmiga iyo madaxweynaha maadaama 4 sano oo jab in naasibe la soo maray oo dalka aan laga shaqeynin maaragtay horumarkiisa aan laga shaqeynin in maalintaas ay noqoto maalinta badbaadada lagu bedelo 15 May waa maalinta badbaadada qaranka Soomaaliya in la dhaho way yaa dhahay marka waxa dhahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhahay oo ani aan ugu horeey لأن الله كله واقع بدبادة أنا ضد أنا كمية أو دنيا أنا كمية وكل واقعنا حاسمين سامر أنا كقرن مو وضعنا إذا عند دولان كنا يمالهن كلية وحموجيننا شعور تنظر إن ما ديت مدحوين حسن شقور لما هذا ضل كان لوجه دور الشو هشيس لويه دور الشدي اللي سكسو قاعدنا كرسي هذا عليه كان قاعد هذا عليه كان قاعد ده ما أقول لا نسا إني دعوة وما سنتها وسؤال في عواد كورن حدي maaragtay heshiis lagu noqon waayo doorashada heshiis lagu noqon waayo oo dawladnimadeena ay gacmeena ku burburto soo kama qurux badno tii la soo dooranayay oo kan yaan la dooran kan hala doorto soo kama qurux badno si loo gaaro mustaqbal wanaagsan si hor loogu sii socdo لأنه واحد dawladnimada fiiri waa wax step by step waa wax maalin fiiri 2016 maanta lama joogo caasimada muqdisho sidii hore ma aha madaxweyne kasta madaxweynaha ka dambeeyo step sii qaada ma fahamte marka waxa waaye in wixii aanan anaa dhahay iyo anaa sameynaa inaan noqonino xukunka maartay waxa waaye qor isu dhib waaye waxaan waa heshiise annaga uma ololeenayno in maartay kaliya uma ololeenayno doorashooyinkii hore in lagu laabto waxaan u ololeenayaa dimuqraadiyadda dalka step by step soo socotay in yar u kabanaysaa lama rabo macangegnimo lama rabo dimuqraadi madaxweynuhu wuxuu sheegay dhowr jeer oo ku celceliyay inuu yahay nin dimuqraadi ah dimuqraadiyada aad ugu fiican madaxweynaha sheegashadiisa ka war maxay kula tahay madaxweynaha horta waxa waaye nin maartay dadka aad iyo aad
maaragtay dadka u sameeya macnaha wuxuu sameeyaa waxyaabo oo dadka bulshada maaragtay iskaga gadaayo oo uu leeyahay wuxuu istusaa inuu yahay qof dimuqraadi ah laakiin madaxweynaha maskaxdiisa iyo asiga dhan marka qofka oo si fiican u akhriyo waxaa ka muuqato in rabo in meeshan forever uu iska joogo ilaa uu ka dhimanayo tusaale annaga ka siyaasiyiin iyo dhalinyaro ahaan waxaa la soconaa madaxweynaha inta badan wuxuu waqti ku geliyaa dadka oo kala talasiinimada oo waqti la qaataa asiga ha yaa kamid ah waxaa kamid ah Ismaaciil Margeele oo maalin kasta oo wardaraata ugu dambeysay wuxuu aaday oo xilli cibaadada lagu jiray wuxuu aaday maartay Ismaaciil Margeele Tanzania uu tagaa islaamta meesha iska haysto Museveni waa iska dhow yihiin waxa meeshaas oo loogu wareegsanayo oo xindaabkaas adiga uu joogo xamqana ama aslana waxa waa in madaxweynaha muddo dheer uu soo joogo war madaxweyne wiilkiisa frontiga intuu diro deegaan maartay maamul in la abduubo u diray macnaha image ay tusinayso waxa waa maqana image kaas wuxuu mutusinaa in meeshan war Museveni wiilkiisa maart wuxuu u hajibaa dawladda kale abisa ilaa macnaha waqti dheer meesha iska joogo uu isleeyay kursiga marka waxaan ugu barbaarinayaa madaxweynaha wuxuu train garanayaa isteebiyada saaxiibadiis oo dictatornimo marka Yoweri Museveni wiilkiisa iyo wiilka Xasan Sheekh isku mid noqdo miya isma wala jeeda hay maxaagii koonfur galbeed maxaagii ninkaas nin tababar oo maartay military hore ku soo jirina ma aha taliye oo maartay oo qeyb ka taliyana ma ahan macnaha waxay ku tusaysaa in maartay dhaqdhaqaaq iyo waxyaabahaas inuu ula socdo maybe taas marka waxaan leenahay madaxweynaha hawaantooba madaxweynuhu professorow aqoon-yahana tahay yeysan muuqaal aan hadhow aan sax noqon doonin dhalanteed waa taqaanaa waxaan waa dhalanteed waxaa ujeeda madaxweyne waa dhalanteed haddii xukunka ka dhamaado wallahi bilaa talla cid ku dagaalamaysan ma arkaysid saraakiisha ku hadda oo lacag ka gurubsanayo cid ku dagaalamaysan ma lahan ugu dambeyntii waxaan leenahay madaxweynuhu talada dhexda soo dhig siyaasiyiinta iskugu wac doorashada laga heshiiyo 15 May inta ka hor hal dastuur ah la gaaro dastuurka ajaab iska gashanayso oo golanka kugu jirana madaxweyne dhulka soo dhig mid dalka lagu xukumayo ma aha oo mustaqbal lagu xukumayo ma waa mid maartay kaliga oo iska jaakad talaada ka soo sameey jaakad uu dastuurka sameystay macnaheedu waxa waaye in dastuurka uu jaakad ku sameystay maartay aysan suurtagal ahayn mid mustaqbalka sii socon doonto madaxweynaha waxaan leenahay hadda waqti aan la haystaa waqtiga ah haysto ka faa'iideys madaxweynuhu dalka marka maartay aysan dhicin khilaaf dastuur oo san dhicin yaysan xabad muqdisho ka dhicin muqdisho sidana u jeeda biladeeda u qurux badan tahay mar haddii xukun ka dhamaado waxaa xaqiiqo ah farmaajo kama fiicnaade cid ka jecel ma leh farmaajo yaan been lagu sheegin nimanka oo malbaanay ka soo dhargiyo oo magaaladan oo gurbaanku ku tumaay oo abaabul ugu horeey oo habeenku ku imaanaya maartay been ku sheegin cid ku difaacaysa malahan dimuqraadiyadda ha noolaato aad u maasantaa gudaha halkaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabay saaxiibayaal waraysiga koobnaa oo aan la yeelanay Cabditax Qorane oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha magaalada Muqdisho ku nool si weyn uga faalooda xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida ay wax marayaan gudaha saaxiibayaal halkaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabay nabadgelyo.